Assalaamu calaykum. Dhammaan waana salaamay. Anigu magacaygu waa Yunis. Waxaan ku jiraa da'da 40-ka. Maanta xaggan waxaa u imid inaan nooga sheekeeyo qiso xun oo nagu dhacday. Anigii saaxiibaday, Caadil iyo Maxamed. Diyaar ma u tihiin inaan qisadeena inooga sheekeeyo? Haddii aad diyaar tihiin, like saara, commentigan wax ku soo qora sidaa u ogaado inaa aniga joogtiin. Anigu waxaan u maleynayaa 10 sano ka hor. Anaga iyo asxaabtay waxaan ku jirnay waqtiga dhallinyaronimada. Wax kastoo cusubna waan samayn jirnay. Ma aan dhageysan jirin xataa dadka waxayna dhahayaan. Isbuuc kasta waa safri jirnay. Meel kasta oo la furana waa taagnaan jirnay. Dhallinyaradeena ayaa ka faa'iideysanaynay. Meelaha lagu ciyaaro, meelo badan ayaa aadnay. Subaxyada ka mid ah waxaan soo wacay Caadil. Wuxuu dhahay, "Ibaabka ayaa taaganahay aniga Axmed. Hoos u soo deg." Hoos ayaan u soo degay. Waxaa dhahay, "Oo subaxda maxaa u soo kala hadeen? Ii sheega." Axmed wuxuu dhahay, "Anigaba sidaadoo kale ayaa ahay. Ma garanayo subaxda xagga waxa la igu yeeray." Caadil ayaa hadlay. Wuxuu dhahay, "Mawduuca hore u galno. Aniga waxaan rabaa inaan inoo sheego inaan dalxiis aadno. Taas ma igu raacsan tihiin? Taas miyaa jawaab u baahan?" "Haa, dabcan waa yeelinaa." "Haddii saas tahay, waqti badan inaan iska lumina ma ahan." "Caadil, safarkan aad ayaa ugu faraxsan tahay. Muxuu safarkii hore safarkan uga duwan yahay?" "Haa, safarkan safaradii hore wuu ka duwan yahay. Aad ayuu uga duwan yahay." "Oo safarkan miyuu ka duwan yahay meelaha qadiimiga ah oo la aadayo? Oo miyuu ka duwan yahay meelaha kaamirooyinka loo qaadanayo oo lasoo duubayo?" "Haa, wuu ka duwan yahay. Waxaan aadaynaa tuulo oo ku dhex yaala qasri sixir ah." "Guriga sixirka? Waa markii ugu horeysay aan maqlo guriga sixirka." "Haa, waa ogtahay markasta wixii cusub inaan ka ogaano." "Oo maxaa xaafadaas ka taqaanaa? Oo xaafadda maxaa shaqo oo noogu jira?" "Kow waa inaan soo ogaanaa gurigaas waxa ku dhex jira. 2, ninkii gurigaas iska lahaa oo saaxirka ahaa wuu dhintay. Wuxuu ahaa saaxir weyn. Qofkuu sixirana tuulada dhan sixirkiisa maysan ka furfuri karin. Xataa tuulada waxaa loo bixiyay isha sixirka." "Haa, asagu wuxuu ahaa sixir weyn. Marka adiga waxaa rabtaa inaan gurigiisa intaan tagno aan ku soo baasaalno, sax?" "Haa, hadda ayaa sheegtay." "Caadil, halkaa markaa nagu imaanaysa caqligaaga miyaa soo weysay? Adiga ma soo waalatay? Ma waxaa rabtaa nin saaxir ah gurigiisa inaan ku dalxiisno oo dadka tuulada ka baqaan?" "Yunis, waxba ka baqin. Markaan tuulada tagno dadka ayaa weydiinayna inaan meesha gali karno iyo inaan meesha gali karin. Inaa baqdiin maaha. Ninka saaxirka mar hore ayuu dhintay asaga." "Caadil, Yunis wuu saxsan yahay. Qofka saaxirka markuu dhinto guriga shaydaamada kama baxaan oo way ku jiraan. Saas ayaa aniga maqlay. Haddaad aniga ilaacaynin aniga ayaa keligay baxayo." Waxaa ogaanay haddii Caadil safarkan ka joojino inuusan asaga yeelayn uu ku qanacsan yahay inuu asaga baxo. "Haye waa ku raacaynaa. Bal isug intaan dharka iska soo bedelayo aan soo qaadanayno waxyaalaha u baahannahay." Waa soo baxnay. Gaari ayaa soo qaadanay. Aniga qalbigayga muusan dareemayn wax farxad ah. Saacado kadib tuuladii ayaan nimaanay. Dadka ayaa bilaabnay inaan bid u weydiino. Markaa galna inay wax nagu dhacayaan inaysan waxba nagu dhacaynin. Dadka weydiinana way naga cararayeen ayagoona noo jawaabin. Dadka tuulada markaa weydiino waxayna dhahayaan ma naqaanay ord meesha iskaga tagaa. Annaga markaa intay nagu dhaheen waxaan qabtay inaan meesha galno. Waxaa weynay qof runta inoo sheega. Meesha waxa ka dhacana inoo sheega ayaa weynay. Marka aan daalnay ay naga taagan tahay quus ayaa waxaan nimaanay hawar cajuusad ah gurigeeda. Marka waxaan ku niraahnay meelaha ku nasano fadlan mana sii kartaa? "Haa, waa fadhiisan kartiin. Waa mahadsan tahay eedo. Waa markii nagu horeysay aan meeshaan nagu arko. Aniga meeshaan waa ku cusubtihiin samaaha." "Haa, waa runta. Meeshaan waxba ayaa u nimaan inaan aragno. Kadib waa iska tagaynaa." "Dabcan waxaan u maleynayaa inay u socotiin guriga sixirka. Qof kasta aad weydiisayna wuusan noo jawaabin samaaha." "Haa, waa runta. Meesha inaan galno waa ka baqaynaa anagoona macluumaad badan haysan. Qof kasta aad weydiinayna muu inoo jawaabayo." Cunugayga ayaa qasrigaas galay. Wuxuuna jiray da'diinoo kale. Qof kale oo tuuladaas degan oo ma jirin oo qasrigaas galay. "Yaah, ma cunugayga ayaa qasrigaas galay?" Ayadoo qiirooto ayay tiraahday, "Haa." "Maxaa ku dhacay? Asaga hadda muu fiican yahay?" "Cunugayga wuu dhintay. Neeftiisa ugu dambeysay wuxuu ku qaatay guriga ibaabka hortiisa." "Allah u naxariisto."
waa ka xunnaa inaan ku soo xasuusino. Asxaabey, Part 2 la socda. Waa mahadsantihiin sida inoo gaarsiiseen 200 oo subscribers. Waxaan sugaynaa inaad na gaarsiisiin 300 oo subscribers. Waa mahadsantihiin asxaabteyda.